daawadayaal wacan oo wanaagsan meel kasta oo joogtaan markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo ku eegi doona habeenkan caawa ah kulanka xiisaha leh kulamada ugu xiisaha badan ee El Clasico taas oo dhexmari doonta kooxaha ugu weyn dalka La Liga ee lagu magac daray Realka iyo Barcelona ciyaartan xiisaha leh galabta ka dhici doonta garoonka kooxda Santiago Bernabeu ee magaalada Realka ayaa waxay noqon doontaan mid si gaar ah isha lagu hayn doono maadaama labada kooxood ay ku kala duwan yihiin isla markaana ay ku kala horeeyaan horyaalka dalkaasi La Liga kooxda Real Madrid ayaa ku horeysa haatan kooxda kaalinta labaadna waa Barcelona oo haddii ay Barca galabta badiso waxay noqon doontaa kooxda ka sarreyn doonta isla markaana hogaamin doonta La Liga dalka Isbaanishka wargeyska Deportivo ayaa sheegay in kooxda Hansi Flick ay tahay kooxda ugu sarreysa horyaalka La Liga marka loo eego goolasha madaxa lagu dhaliyo xilli ciyaareedkan Barcelona ayaa 5 gool oo madaxa dhalisay 24 gool ee ay soo dhaliyeen 9 kulan ee ugu horeysay iyadoo boqolkiiba 0.56 ay tahay dhanka kale Realka ayaa kaliya 1 gool oo madaxa dhaliyay kaas oo dhaliyay Arda Güler taas oo ka dhigaysa boqolkiiba 0.11 oo kamid ah 20 gool ee ay dhaliyeen inkastoo Barcelona ay kaga sarreyso Madrid dhinaca awoodda kubadaha sare haddana kooxda Catalonia waxay El Clasico u gali doontaa iyadoo ay ka maqan yihiin laba kamid ah ciyaartooyda ugu waaweyn ugu awoodda badan hawada sare Roberto Lewandowski iyo Andre Christensen Julius Kounde ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka dhinaca kale Realka ayaa xilli ciyaareedkan 4 gool oo madaxa khasaarisay kuwaas oo kamid ah 9 gool ee laga dhaliyay boqolkiiba waa 0.36 Barcelona weli lagama dhalin wax gool madaxa inkastoo laga dhaliyay 10 gool guud ahaan Barcelona ayaa waxay leedahay awood muuqato oo ka sareysa Realka marka ay timaado kubadaha hawada sare balse dhaawacyada Lewandowski iyo Christensen ayaa noqon kara arrinta saameyn ku yeelan karta El Clasico halka Realka ay isku dayayso inay ka faa'iideysato maqnaanshahaas